hilbaan luug waqti badan la qaysay wilba jiisna waa tahay wilba jiisna waa daashay meel fadhiisa walaal jiisnimadan waa qadar ilaahay dhacday waaye aniga shida ma qabo buuq ma qabo waa isku kalsoonahay alxamdulillah asaga waa ka fiicanahay asaga laakiin midaan ku sheegaya caloosha iyo dhuunta curyaan ka yahay wax igu soo ridkiliya feere gacanta u taagan gacanta ayaa u taagan baarlamaankana wuxuu ku baabiyay waa taas hadduu aniga ilaahay jiisana anigu jiisnimadeeda alxamdulillah ilaahay baa qadarta igu keenay qadarta ilaahay keenayna waa ku qanacsanahay maanta inuu yiraahdo hebelow adiga duqaa tahay hebelow adiga jiisaa tahay hebelow adiga sharci darrada uu ka shaqeynaayo dhadhankeeda ka dareemaysaa dhadhankeeda waa kulul yahay laakiin midaan ku sheegaya waa qaboobi doonaa golahuna soo dhax fariisanaya ilaahay idin طبعا maanta baarlamaanka waa joogteen maalmahan oo dhan baarlamaanka buuq ayaa ka taagnaa buuqaas oo ah xildhibaan Abiib oo si sharci darro ah xilka looga qaaday iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo caadeystay inuu sharcigii xeer hoosaadkii golaha iyo dastuurkii dalka wax baalmarsan kaliya inuu ka shaqeeyo asagoo ka shaqeeya danihiisa gaarka ah asagoo ku milmay xukuumaddii asagoo ku milmay filla Soomaaliya madaxtooyadii 275 sano la soo dhaafay maalina wax sharci ah kama shaqeynin marka sida darteed maadaama Abiib howshiisana ay taagneed gudoomiyahana xildhibaano 110 gaaray ay ka qoreen mooshinkiisana uu diyaarsanaa labadiisa ku xigeen ay diideen inay qabtaan mooshinka ayaa mataqaanaa ii sheegay waxa keenay marka buuqi maanta baarlamaanka hariyay sababtoo nin xilka laga qaaday oo mooshin uu ka yaalo eedeysana ah oo 110 xildhibaan mooshin ay ka soo gudbiyeen oo sharci ah cid qabatana la waayay hadda xaq uma laha inuu asaga